الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على زين الوجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaanu kasoo hadlaynay oo aan ku guda jirnay kitaabkeenii ka hadlahayay ama ka sheekeynahayay taariikhdii iyo sooyaalkii nabigeena sala allahu calayhi wasalam. zamanadan iyo maalmahan ma aanu akrin oo waan yaro mashquulnay. hadda ayaanu akri doonaa insha allah. cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay waxyaabihii dhacay xilligii nabiga sala allahu alay wasalam oo dhalanahayay, oo ah waxyaabo lala yaabo oo irhaasaad ama gogol dhigyaal la yiraahdo, oo nabiga nebinimadkiisa sii cadeynahayaan, oo gogol dhig u ah, oo gogol xaar u ah. sheekhu wuxuu yihi wadahara waxaa soo muuqday cinda wilaadatihi, waxaa soo ifbaxay nabiga dhalashadiisa agteeda khawaariqu waxyaabo dilaacinahayo caadada waxaa la yihahdaa waxa jira wey, waxa la yaqaano oo markaas dhacaan. marka waxyaabo arrinkaas khilaafsan ayaa dhaca wey, nabi maxamed ku dhalanahay wey. iyo waqaraa-ibu ayaa dhacay, waxyaabo ka fogaa loola jeedaa fahamka, oo qeybiyatu qeyb loo nisbeeyey. waqaraa-ibu qeybihi qeyb loo nisbeeyey, waxyaabo fahamka ka fog, in la fahmo ka fog, oo haddana qeyb aho ilaahay oo hore u warqabo annaka aan hore u ogeyn ayaa dhacay wey nabiga xilliga u dhalanahay. maxay u dhaceen marka? irhaasan ayay u dhaceen wey. marka gogol dhig iyo gogol xaar darteed, nubuwati nabiga nebinimadkiisa loo gogol xaarahayo, iyo iclaamal ogeysiin dadka la ogeysiinayo biannahu nabiga inuu yahay mukhtaarullah ilahay midkii oo doortay tacaala sareeye, wa mujtabaa ilahay midkii oo doortay. nabiga inuu yahay kii ilaahay oo doortay, cadeyn dadka loo cadeynahayo iyo ogeysiin dadka la ogeysiinahayo ayaa arrintaas u dhacday wey. marka iyo gogol dhig loo gogol dhigahayo nabiga nebinimadkiisa. waxyaaba waxaa dhaceen dee markuu qof bini aadan dhalanahayo, waxyaaba aan dhici jirin ayaa dhaca wey nabi maxamed ku dhalanahay. maxaa yeele nabigu waa khayru khalqillaah, ilahay dad wuxuu abuuray kan ugu khayrka badan wey. xabiibullaahi waa ilahay kii oo jeclaa wey. marka dadka in lamid noqdo maaha wey, dhalashadiisa in dadka kale ka duwanaataa la rabaa, dhalashooyin kale waa inay ka duwanaataa. marka waa dabaaldeg. marka waxyaabahan xilliga nabiga u dhalanahay ilahay wuxuu usoo aadiyey, waa dabaaldeg. ilahay ayaa wuxuu u dabaaldegahayaa nabiga dhalashadiisa wey, oo weyneynahayaa. annakan marka inaan weyneyno wey. marka qofkii weyneeya nabiga dhalashadiisa oo u dabaaldegaa waa qof ilaahay ku daysaday wey. marka qofkii kasoo horjeesta arrinkaas ama diidaane waa qof ilaahay khilaafay. sidaas weye. fasidati samaa hadduu sheegaya sheekh marka waxyaabihii dhacay. fasidati samaa, samada ayaa waxaa lagu siyaadiyey xifdan ilaalin. samada ayaa waxaa lagu siyaadiyey ilaalin, oo samooyinka toddobada ah waxaa la yihahdaa xilliga u dhalanahay nabi ciise 3 samo ayaa loo diiday weeyaan jinniga inay koraan. awl jinniga intay koraan shayaadiinta ah ayay waxay soo dhegeysan jireen malaa'igta waxyaabay ku hadlahayan ay soo dhegeysan jireen, markaasi dadka u sheegi jireen, oo shayaadiinta ayay kala shaqeeyaan oo bini aadanka ah, oo dadka sida wax sheeg ku wax sheega oo kaleeto weeye, faalshooga iyo balaayada iyo kitaabka abulooyaasha kuwaasay marka u sheegahayaan. kuwaasa marka 100 been ay kusii darahayaan arrintii, waxaasa dhici doona, waxaasay leeyihin 100 been ayay kusii darahayaan. marka xilliga nabi ciise oo dhalanayay waxaa loo diiday jinnigaas 3 samo ayaa loo diiday wey. marka nabi maxamed markuu dhalanayay 4 kale laga xiray wey. marka warudda waxaa la celiyey canhaa samaawaadkii, waxaa laga celiyey almaradatu kuwii madaxa adkaay, jinnigii madaxa adkaay ayaa laga celiyey samaawaadka inay koraan. iyo wadawu nufuusi shaydaaniya, iyo kuwa nafafka shaydaanta loo nisbeeyay u saaxiibka ah, kuwa naftooda shaydaanta ah, kuwa nafafka shaydaanka iska leh ayaa laga xiray weeyaan haddana, oo loo diiday inay samadii koraan. sidaas wey. marka sidee looga celiyey marka kuwan? warujimad waxaa lagu gamay nujuumun nayiraati, xidigihii ifahayay, xidiga ifahay ayaa lagu soo gama weye. marka kulla rajiim, mid kastoo rajiim ah oo shaydaan ah oo ilaahay naxariistii laga fogay, fii xaali marqaahu xaaladda oo korahayo, markuu samada korahayo xidigahaasa lagu soo tuurahaya. xidigaha marka wax ka baxaya waaye, xidiga maan waxaa weye waa shuhub weeyaan ama dabaaburo waxa loo yaqaan ayaa lagu soo gamahayaa wey. markay saas usii korhayaan markaasuu gubanahayaa shaydaankii. watadallad haddana waxaa dhacay, watadallad waxaa usoo dhawaatay ilahi nabiga waxaa usoo dhawaatay sala allahu alay wasalam al-anjum zuhriya, xidigihii ifahayeen. xidigahan cirka ku yaala samaawaadka ku yaala oo ifahayaan ayaa nabi maxamed xilligiisii soo dhawaadeen, yani ilaah ayaa soo dhaweeyey. marka waa dabaaldeg, ilaah ayaa soo dhaweeyey, xidigihii ayaa caadi usoo dhawaadeen. wastanaalad waxaa ifay binuurihaa, xidigahaas waxaa la ifay nuurkoodii, wihaadul xarami, xaramka meelihiisa xaramka meelihiisa oo buuraha ah, meelihiisa dhulka siman iyo warubaahu meelihiisa buuraha ah,
wihaadul xaram xaramka meelihiisa dhulka siman ah. Dhulka siman caadiga iyagoo rubaahu buurihiisi xaramka buurihiisi iyo dhulkiisina dhan nuurkaas ayaa la ifeen weye. xidigahaas nabi maxamed dartiis loo soo dhaweeyey ka baxayaan dartood ayaa la ifeen weye marka. wakharaja waxaa baxay weli wuxuu wada sheekha waxyaabihii dhacay xilliga nabiga u dhalanahay. macahu nabiga waxaa lasoo baxay nabiga kasamka u dhalanahay waxaa lasoo baxay nuurun ayaa lasoo baxay weye. nuur iftiin nuurkaasoo adaat lahu ee la iftay qusuuru shaami alqaysariya sarihii shaam ku yaalay oo qaysar loo nisbeeyey wey marka. sarihii shaam ku yaalay oo loo nisbeeyey qaysar. qaysar waxaa la yihahdaa boqor kasta oo dowladii rum la dhihi jiray hogaamiya. dowladii rum la dhihi jiray boqor kasta oo hogaamiya waxaa la yihahdaa qaysar. dowlad aad iyo aad xoog badan ay ahayd oo adduunka kala bar ayay haystay wey dowladdaas. dowladda kaleeto xoog badan ayadana waxay ahayd dowladii furus ama farisiyiinta oo iiraan iyo dhulkaas haysan jireen. sidaas wey marka nuurkaas waxaa la ifay sham saraha ku yaala wax dhul dhow maaha marka. xaramka oo nabiga ku dhashay dhul dhow maaha marka xaggaas iyo sham bil ayaa loo socon jiray wey marka. halkaasuu gaaray nuurka nabi xun lasoo baxay wey marka. arrintaasna waxaa ku sugan dee caddeyn ama ogeysiin la ogeysiinayo iyo digid loo sii digayo dadkaas in dee diintii xaq ahay iyo nebiga xaq ahay oo dhashay ayakana baadilkoodii iyo ayaka ay baabi'i doonaan. sidaasa ku sugan wey marka. fara-aa waxaa arkay haa nuurkaas waxaa arkay man ayaa arkay qof bibidaaxi makata maka banaankeeda daaruhu gurigiisa oo ku yaala iyo maqnaahu makaanu sugnaashihiisa meesha uu ku sugan yahay iyo gurigiisa qofka maka banaankiisa ay ku yaaleen wuxuu arkay nuurkaas wey marka. dadkii maka ka baxsanaayo guryahooda ka baxsanaaye mako oo maka banaankeeda oo guryahooda ku yaaleen waxay arkeen nuurkaas ayay arkeen wey marka. wansadaca waxaa dilaacay al iwaanu xafiiskii. bal halkaasa ku sameynaa arrintan waa xoogaa qiso xoogaa oo meesha ku jirta wey oo dheer oo in laga sheekay u baahan. halkaasa ku sameynaa marka ilaahay nagu anfaco. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.